بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa maamulka iyo shaqaalaha shirkadda Golis halkan tacsi uga dirayaan dhammaan walaalihii ay dhibaatada ku soo gaartay dabaylihii roobkii dabaylaha watay ee ka dhacay deegaamada Puntland. waxaan leenahay intii dhimatay Ilaahay ha u naxariisto, samir iyo iimaan Ilaahay ka siiyo. sida loo ogsoon yahay oo dhammaan cid kasto dhammaan deegaamadii dhibaato ka dhaceen shirkadda Golis way ka shaqeynaysay. kadibna markii roobkii dabaylihii yimaadeen waxay waxyeello u soo geysteen isgaarsiintii. waxa shirkadda ka damay xarumo tiro badan oo gaaraya ilaa 15 xarumood ka badan. xarumahaas ay ka mid yihiin Casayr, Taageer, Raas Xaafuun, Foocaar, Bandarbayla, Marraye, Garmaal, Baqbaq, Kabaal, Kulub, Garacad, Jarriiban, Lebilamaane, Seemade, Dhinowda, Tawfiiq, Mayle, Baday iyo kuwa kale. dhammaan xarumaha isgaarsiinta kulligood saameyn baa wax ku yeelatay dabaylihii. qayb ka mid ah roobabkii baa gudaha u galay oo qalabkii damiyey, qaybna waxa wareegay qalabkii meesha saaraa, qaybtoodna qalabkii waa burburay intooda qayb ka mid ah. dhammaan shirkaddu dib u soo wada kicisay, kullina way wada shaqeynayaan hadda. ilaahay mahadiis waana adeegyada hadda hawlaha socda lagu gurmaday. shirkaddu waxay markii hore ka mid ahayd shirkadii ugu horeeyay oo ka qayb qaatay oo dhaqaalaha ka qayb qaatay bay ka mid ahayd. ka bacdina sidaan sheegay shirkaddu waxay dirtay gaadiid iyo mas'uuliyiin horkacay oo kaxeeyay culimadii iyo aqoon-yahankii iyo waxgaradkii si loo soo qiimeeyo dhibaatada meesha ka dhacday intay leegtahay. haddana way ku soo hawleeyihiin waxayna shirkaddu diyaar u tahay ilaa markii meesha ugu dambaysa inay gurmadka ka qayb qaato.